Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhowaada janaalka faa'iidayso. Waa weli oo barnaamijka idiin soo jeedinaya. Weli ma isweydiisay in ay wax sir ah kugu qarsoon yihiin? Macluumaadka ku saabsan noloshaada yaa kula og. Waxaa jirtay waqti ay dadka bini'aadamka ah ay dhaqdhaqaaqooda iyo nolol maalmoodkooda waxa ku saabsan oo dhan ay u ahaan jireen sir. Haddii aan wax macnaha raada laga hayninna kadib waxay iska noqon jireen wax tegay oo aan rikoor aan laga haynin. Haddaba waqtigaas wuxuu noqday waqti laga tegay. Sidaad la socotaan technology-ga IT-ga information technology-ga aad ayuu u faafay noloshana aad ayuu ugu fududeeyey bini'aadamka si ay u adeegsadaan nolol maalmoodkooda. Inkastoo aaladaha casriga ah sida telefoonka, credit cardka iyo kombiyuutarada wixii la mid ah ay nolosha bini'aadamka si fiican si wax weyn ay uga beddelaan, waxay halis ku yihiin siraha xasaasiga ah ama waxa loo yaqaano privacy-ga. Waxaa jirtay nin ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu helay warqad xayeysiin ah oo ku saabsan waxyaabaha carruurta ay u baahan yihiin iyo naagaha uurka leh alaabaha ay iibsadaan. Warqadahaasu waxay ku socdeen oo ay toos ugu socdeen gabar yar oo u dhalay oo markaas dugsiga sare dhiganaysay. Ninkii markii uu helay kupoonnadii alaabahaas ku saabsanaa aad iyo aad ayuu u cajabay, wuuna yaabay sida ay arrintan ku dhacday. Warqadihii ayuu ninkii isagoo caraysan wuxuu u qaaday dukaanka. Dukaanka waxaa la yidhahdaa Target. Waa dukaan weyn oo ku yaalla dalka Maraykanka. Wuxuu codsaday markuu dukaanka tegay inuu la hadlo maamulaha. Sida caadada ah maamulayaasha markay u yimaadaan dadka customer-ka ah waxay weydiiyaan waxa ay kaa caawin karaan. Kadib maamulihii wuxuu weydiiyey ninkii sidaas. Ninkii isagoo iska caraysan ayuu wuxuu tusay warqadihii. Wuxuu yidhi warqadahan ayaa loo soo diray gabadhayda. Waxa ayna ku saabsan yihiin sidii inay uur leedahay oo ama ay ilmo yaryar leedahay ama ilmo dhashay. Gabadhayduna ma ay gaarin waqtigaas, waana gabar yar oo weli iskuulka dhigata. Markaasuu wuxuu ku eedeeyey in iyagu ku dhiirigelinayaan inay arrimahan ay ku dhiirigelinayaan inay gabadha ilmo yeelato. Cajiib. Ninkii maamulihii isagoo yaaban ayaa uu waraaqihii markuu eegay kadib waxa uu sameeyey ayuu garan waayey. Wuxuuna ka raaligeliyey arrintaas ninka odaga ah. Wuxuu ka qortay nambarkiisa si uu u soo hubiyo bal arrintan sidii ku dhacday. Wuxuu ku yidhi anigaa ku soo wici doona kadib markaan macluumaad dheeraada aan soo helo. Maalmo kadib ayaa waxaa dhacday in ninkii maamulaha ahaa uu waco ninkii dacwada qabay. Markii ay telefoonka uu ka qabtay ayuu yidhi waa anigii maamulaha Target oo kuu soo wacay inaan mar labaad kaa raaligeliyo arrintii kugu dhacday oo gabadhaadii ku saabsaneed. Laakiin maxaa dhacay? Ninkii waxa uu yidhi u kaadi. Waxa aan rabaa inaan idin raaligeliyo ayuu yidhi. Idinka inaan idin raaligeliyo ayaan rabaa. Maxaa yeelay wuxuu leeyahay ninku waxaaba jiray arrimo aan anigu la socon oo gurigayga ka dhacay. Waxaan soo ogaaday buu yidhi gabadhayda yar tahay inay uur leedahay oo ay dhowaanba ay dhali rabto. Sheekadu waa qiso dhab ah oo ka dhacday gobolka Minnesota dalka Maraykanka. Marka waxaan leenahay Target ama dukaamada Walmart-ga ah oo iyo wixii la mid ah, sidee buu Target ku ogaaday in gabadhan ay uur lahayd iyadoo aabaheed iyo hooyadeed iyo familkeeda ayan ogaan ka hor? Sidaad la socotaan dukaamadu waxa ay aad iyo aad ula socdaan ay u raacraacaan dadka waxyaabaha ay iibsadaan. Waxay sameeyaan u fiirsasho la xiriirta nooca alaabta oo customer-ku gadanayo. Waxay ogaadaan markaas kadib nolosha uu qofku ku sugan yahay si ay u ogaadaan waxa uu u baahan yahay mustaqbalka dhow.
tusaale ahaan haddii uu qofka gato arrimaha ku saabsan guryo dhiska, buris ama hammer ama ma aragtay nails masaabiir ayuu gatay qofkii, waxay markaad iska dareemayaan qofkan inuu ama yahay qof fundi ah ama uu yahay qof gurigiisa raba inuu casriyeeyo oo shaqo ay uga socoto. waqtigii bay markaa isku aadinayaan si ay markaa uga gadaan markuu dhammeeyo guriga, markuu dhammeeyo inay ranji ka gadaan. waxaa dhici karaysa markaa inay usoo diraan alaabtii ku saabsaneyd ranjiga, maxaa yeelay isagaa gatay wax ku saabsan guryo dhisid. marka waxaa dhacday, marka inta badan waxaa dhacda in ay aad iyo aad inta annagu aan iska ognahay nafteena in ka badan inay naga og yihiin. marka waxay og yihiin waxa aad u baahan tahay, inaad qof singala tahay, inaad qof caruur leeda tahay, inaad ma aragtay da'daada, haddii aad ma aragtay qofkaad markaa wada joogteen aad isku xun tihiin, haddii aad isku fiican tihiin, waxyaabaha aad gadanaysa ayay waxaasoo dhan ka ogaadaan si ay waxa aad u baahan tahay markaa naftaad u baahan tahay ay kaaga gadaan. shaksi kastaa markaa waxay u sameeyaan number gaara ayay u sameeyaan oo ay kula socdaan wuxuu gadanayo. marka sidee wax u dhaceen marka arrintii gabadha aan usoo laabanno, waxaa dhacday in gabadha ayaamo ka hor ay gadatay qalabka lagu baaro uurka, pregnancy test. waxaa dhici karaysa markaa kadibna inay gadatay fitamiinada oo ay qaataan dumarka uurka leh. sida ay markaa u muuqato waxay isticmaashay debit card ama credit card. maadaama credit cardku uu xambaarsan yahay ay ku jiraan informationka qofka oo dhan, sida qofka magaciisa, adresskiisa, numbarkiisa, da'diisa, iyo xataa iskajelkiisa hadduu shaqeeyo haddaanu shaqayn ay ka ogaan karaan, maalmaha saacadaha uu adeegto iyo weliba wax kasta oo uu gato. sheekadan waa qiso dhab ah. waxaa soo qoray wargeysyo badan, laakiin anigu waxaan kasoo xigtay wargeyska Forbes. wargeyska Forbes mar uu waraysi la yeeshay dadka u qaabilsan target xayeysiinta ama suuqgeynta, iyagoo sharaxaya arrimahan siday ku dhacaan iyo baaritaanadan siday ku sameeyaan, ayaa wuxuu yidhi marka customerku alaabta naga gato waxaan u sameynaa credit cardkiisa iyo waxaan isku xirnaa iyo qofkaas, kadib waxaan markaa noo soo baxaa qofkii macluumaadkiisii oo dhan. waxaa jira alaabo ilaa ay ku tilmaamay 25 alaabood oo la isla gato oo markaad mid gadato midka kalena aad u baahanaysid oo isku xiran. marmar baa waxaad arkaysaa adiga oo gurigaagii mailkaagii markaad furto waxyaabo xayeysiina ku imaadaan, dadka intooda badan waxay u malaynayaan in alaabahaas waraaqahaas xayeysiinta ahaa kuwa lamid ah dariskiina loo diray. laakiin sida arrinta aan ka aragno xaqiiqda waxa weeyaan qof walba waxa loo diraa waxa uu u baahan yahay oo keliya ayaa loo diraa. waxa ay ulajeedada ugu weyn markaa taa u sameynayaan waxay tahay in ay uga hormaraan dukaamada kale oo waxa iyagu ay iibinayaan wax la mid ah iibiya, iyagoo informationkaagii iyo macluumaadkaagii isticmaalay. qiyaastan marka oo daytada ay aruurinayaan ayuu wuxuu tusaale ahaan u soo qaatay, wuxuu yidhi ka soo qaad gabar 23 jir ah ayaa bishii 3 March waxay gadatay boorsada lagu qaado diaperka caruurta. waxay gadatay oo kale kareemka nooca jirka la marsado oo aan lahayn carafta oo caruurta loo mariyo isagoo weyn. waxay gadatay vitamiino. marka wuxuu leeyahay 87% waxay u dhowdahay in gabadhu ay uur leedahay, uurkeedana lagu qiyaaso 3 bilood. sidaas ayay xisaabtii ku sii ogaadaan inay markaa ay dhali rabto ama dhalitaankeedu ku aadan yahay bisha 8aad ama bisha 9aad. sidaad arkaysaan oo sheekada ka cad,
wax kasta oo annaga nagu saabsan aad bay ula socdaan dowladda iyo technology-ga aan isticmaalayn darteed. gabadha inay uur leedahay keliya maaha, waxay kala ogaadeen xilliga ay ku aadan tahay dhalitaankeeda uu ku aadan yahay. marka ulajeedada sheekada ayaan ula jeedaa waxay tahay wax noo qarsoon ma jiraan. tallaabo kasta oo aan qaadno iyo meel kasta oo aan aadno iyo wax kasta oo aan qabanno waana lala socdaa, waana lala weheliyaa. waxaasoo dhanna waxaa keenay oo fududeeyey technology-ga oo marna aan u baahannahay oo nolosha noo fududeeya, haddana khatar geliya arrimaha xagga shakhsiyaadka xasaasiga ah oo privacy-ga loo yaqaano.